wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay sharci adag ka soo saari doonto raashinka aan tayada lahayn ee dalka la keeno kadib markii dhawaan suuqyada caalamka ay ku arkeen bariis ka samaysan caag. wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal looga hortagayo khatarta ay leeyihiin cuntada aan tayada lahayn ee wadanka la keeno. maalmahan waxaa internetka la soo galiyay iyo baraha bulshadu ay ku kulmaan bariis ka samaysan caag. runtii waxaa lagu xakameyn karaa oo laga badbaadi karaa sharci lagu ilaaliyo tayada raashinka iyo cuntada dibadda laga keeno, ayuu yiri wasiirka beeraha. waxa uu sheegay in dhawaan golaha wasiirada uu horgeyn doono sharci lagu ilaalinayo tayada raashinka iyo cuntada dibadda laga keenayo ee yimaada dalka. baraha bulshada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay la soo galinayay bariis ka samaysan caag oo suuqyada caalamka lagu iibiyo, waxaana laga digay khatarta uu leeyahay bariiskaasi. tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxyaabaha saaxada ka baxay waxaa ka mid ah fayadhowrkii iyo badqabkii raashinka dalka la keeno, waxaana dhacda in raashin waqtigoodu dhacay la soo geliyo dalka.